kulanti wacan waa mar kale iyo xalqad ama qayb kale oo cusub oo qaybtii 8aad ah barnaamijka Anta Kafu oo ka baxa TV-ga Bahrain waxa lagu weynayaa ama lagu abaalmariyaa dadka bulshada dalkaasi wax u galay oo u qalma in la abaalmariyo. دعينا نضيف اليوم لحضور محاضرة لكن ما كان هذا الشيء اللي انتظره. ابتدي بالكراسي شباب. waxaa marti ku ah Maxamuud oo maanta loogu yeeray halkan balse wax lama filaan ah ayuu kala kulmaya. الحين لصحون saxamada keena ayaa la yiri waxa ku sawiran saxamada sawiradiisa اللوحة المتحركة شباب. sabuuradii soo kaxeeya ayaa la yiri waxa ku sawiran sawiradiisa iyo sidoo kale ammaan loo jeedinayo. الكيكة doorashada keena ayaa la yiri sawirkiisa ayaana lagu soo xardhay. الحين العربات gawaaridii ayaa la soo kaxeeyay. maxamuud waad u qalantaa ayaa ku qoran. النداء نرحب فيكم أعزائنا الحضور. يشرفنا اليوم وجود شخصية استثنائية قدمت شكل جديد للعطاء. البطل محمود تبرع بكلية لطفل ما تربطه فيه أي maanta barnaamijka waxaa marti ku ah Maxamuud oo isagu mid ka mid ah kaliyihiisa siiyay ama u bixiyay canug yar oo dhibaataysan. في هذا الطفل. نستعرض معاكم قصة البطل محمود. محمود ولدي صراحة يعني أحن واحد، يعني هم كلهم حنينين يعني كلهم. waa Maxamuud hooyadiis waxa ay leedahay Maxamuud aniga ayaa dhalay waa wiilkayga waa wiil wanaagsan. يعني أخاف إني أوصفه وأقصر في حقه للأمانة، أمانة أمام ربنا بتحاسب عليها. ninkan waa waalidka wiilka yar ee kelida uu bixiyay Maxamuud oo isagu sifeynaya. Maxamuud waxa uu yahay مميز بمعنى الكلمة. waa qof wanaagsan oo alla ka cabsi leh ayuu yiri run ahaantii saan u hadlo. قبل الله يتوفى عانى شوية من موضوع الكلى والغسيل والأشياء، وهو قال حاجة بالدكتور يعني waa Maxamuud xaaskiisa waxa ay leedahay aabiis waxa uu geeriyooday kelida oo xanuuna ay uga furnaayeen balse daadiisa oo weyneed ayaa loo diiday in uu mid ka mid ah kaliyihiisa uu bixiyo. taasna waxa ay keentay mar dambe in محمد kalidiisa uu u yoobo wiilkaas yar. مولود خلقيا كلية واحدة. بعدها بفترة wiilkayga waxa uu ku dhashay hal kali أنا 4 سنوات waxaan markii dambe ogaanay in dhibaato ay ku hayso. عايش يعني ومو بعايش. wiilka dhibaataysa hooyadiisa ayaa hadlaysa 4 sano waxa ay leedahay waxa ay ahayd nolol aad u adag oo na soo martay اللعب مع الأطفال waayo wiilkayga ma awoodin in carruurta uu la ciyaaro صار شيء سحبوح xitaa inuu dabaasho waa uu awoodi waaye. يسبح لا في بحر ولا يقدر في كل وقت يتسبح في البيت. ما أنام بسبب الجهاز، كل 5 دقائق أو دقيقتين يصيح بسبب إنه يتحرك ينشفز الهوز. حتى يوم أنا قلت له ماما امشي بصورك عشان ننزله في السوشيال ميديا قال ماما مو في فايدة. mar dambe waxa uu yiri wiilkayga video ha laga duubo social media ha la dhigo inaana hela ayaa dhici karta qof i badbaadiya. اللي كان هو الشخص الأساسي اللي قال أنا بتبرع. قلنا له شو المطلوب؟ Maxamuud ayaa nala soo xiriiray oo dhahaya aniga ayaa tabarucaya kalideeda hadafkaygana waxa waaye uu yiri in alla dartiisa aan u bixiyo. وتوفى. أنا بيني وبينك يعني زعلت من داخلي، لكن كنت راضي بيني وبين ربي. hooyadiis waxa ay leedahay markii hore waan ka xanaaq laakiin markii dambe waa handhahay ilaahay tawakkul oo sida rabtid yeel. رضا الله خلاص، قال أنا برضا ربي. قال لي اذا انت تقدر تسوي عمل خير انك تتبرع بكل حق يوهل عمره 4 سنين كل يوم يسوي غسيل كلى بتسويها؟ قلت له ايوه بسويها. waa wiilka Maxamuud oo isagu dhahaya aabahayga waxa uu igala tashtay bixinta kalidiisa wiil yar in la siiyo. الولد يعيش. والله العظيم هاي كلامه. قلنا احنا ما نرضى بمضرتك. قال أهم شيء الولد يعيش. نتخيل waxyaabaha uu nagu jiro waxaa ka mid ahayd muhiimadda waa in wiilkaasi yar uu nolol u helaa uuna noolaadaa. أسويها العملية، أهم شيء الولد يعيش. يعني أنا
يعني لو شو أقول ما أطلع من دينه صراحة. الحمد لله قالوا بس الشخص محمود اللي هو ابو يوسف الله يجزاه خير ويبارك له، قال انا خلاص متبرع ما ابي حد غيري. فسبحان الله انه على حسب نيته، يعني الله يسر له انه هو مطابق تطابق تام. فقلنا ربي لك الحمد، صلى لنا الله سبحانه الشكر. وهو سجد في الارض الله يجزاه خير، في الشارع سجد يوم ياله الخبر. حتى والله العظيم انه ما رضى ياخذ حتى ربويه. maxamuud uu naga aqbali waayey leedahay in xitaa hal sinti oo lacaga aan siino. waxa uu yidhi waxaan ilaahay dartiis ayaan u baxsanayaa. markii ugu horeysay isbitaalka ka soo baxay kelida laga bixiyey waxa uu weydiiyey maxamed ma caafimaad qaba ayuu ku celceliyey. هو بطل عينه من البنج يسأل عن ولدي محمد من كثر ما هو متعلق فيه، ومن كثر ما يعني شو أقول لك ما أقدر أكمل صراحة والله. يعني شيء أتذكر موقف شيء مؤلم ومتعب من كثر ما هو حلو. هو ما رضى يقوم، كان تعبان محمد. أول ما صحى قال محمود أنا لازم أشوف محمد. maxamuud waxa uu yidhi waa inaan arkaa maxamed. doctorka waxa uu nagu yidhi u daaya, waayo dadkan iyaga ayaa xubin ayaa ka dhaxaysa, waa inay is arkaan. لكن ما شفت الارتباط الغريب فيه، شيء مميز. فكانوا يطلعوا يعني waxay ahayd dareen aan la qiyaasi karin markay is arkeen in ay laabta isgeliyeen, taa oo mucjiso igu noqotay ayuu leeyahay wiilkii aabihiisa. كان موقف جدا 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 يعني تحس بالرهبة يعني ما تعرف شلون، شيء جميل جدا ممتع. يعني تخيل الإنسان ما أعطى قطعة لولدي، أقل قطعة من جسمه، يعني مو شيء بسيط إن الشخص يتبرع بقطعة أو حياته. daawadayaal sidaa daawanaysaan waa muuqaal laga qaada markii maxamuud uu keladiisii u bixiyey wiilka yar ee muddada 4 sano ahaa isagoo keli la'aan la dhibanaa. يعني والله إن كان هاي مشهد الكل صاح، حتى الدكتور قال خلوه محمد ما عنده مناعة بس خلوه. يعني ولدي متعلق فيه بدرجة غير طبيعية. يعني سبحان الله يعني يبي يمكنه مصر يعني كل ما يقول وين wiilkayga yar waxa uu ahaa mid jeclaaday maxamuud oo mar walba ii weydiiya aaway adeer maxamuud. يعني شخص يقول لك أنت ما تعرف، أنا ما أعرف الشخص الله يعلم، يعني ما أعرف من هو أساسا. يعني لوجه الله متبرع لله، وطلع للجمعية صلى الله قال أنا متبرع، أنا متبرع من غير لا حد يختار أحد غيري. محبته حق ولدي يعني تخيل jacaylka uu wiilkaygu qabo ma ahan wax la soo koobi karo. waxa uu ahaa mid barbaariya, mid kor u qaada markii safarka aan aadno, mid xanaaneeya ayuu ahaa mar waliba, mid gacantiisa raashinka ku siiya ayuu ahaa. كان يقوم من فراشه. waxa uu qof isbitaalka la joogay, qof la soo baxay intii uu ku jiray qolka gargaarka degdeg ah waa uu la joogay. وكان وايد يحبني وهو كان wiilkii yar maxamed ee kelida loo bixiyey waxa uu leeyahay aad iyo aad ayuu ii jecel yahay, anna aad ayaan u jeclaan jiray. 4 sano dhibaato ayaan ku jiray. wiilkii waxa uu dhexay nolol iyo geeri, waayo caruurta muusan la ciyaari karin. maxamuud isaga ayaa noloshiisa u soo celiyay leedahay. يعني نادر في الوجود. أنا أحب عمي محمود وايد، أنا وجع لهاي أدر محمود، والوحيد اللي بيتبرع لي بكليته. وقف الكلية أبودي إن كليه سوى بحياة يوري قد السماء والأرض. يعني دائما حتى عند النوم أقول له القصة، يقول لي الحمد لله ماما افتكينا من الجهاز أقدر أنام على بطني. mar walba wiilkayga waxa uu ii sheegay markuu jeefanayo ilaaha mahad leh oo mashiinka ama qalab aan igu xirnayn oo hadda aan caafimaad qabo. حبيبي أنا فخورة بك وايد، وأنا راضي عنك وربي راضي عنك، وقادر إنك أنت يعني سويت الشيء هذا برضاك وتوفيق من الله، من الله وفقك. وأنا وايد وايد فخورة، وإخوانه كلنا فخورين بيك. ما تتكلم قال نقو aniga ma hadli karayo leeyahay aabahan wiilka dhalay
aadan kugu mahad celinayo ayuu leeyahay يعني abaal weyn ممنوع ayaan kuu hayaa شكرا 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 أكثر من شيء ما أقدر أقول. محمود انت صراحة انت مو بس تبرعت حق ولدي، انت محمود تاج على راسي. maxamuud kaliya canuga wax uguma deeqeen ee madaxa ayaa ii saaran tahay ayay tiri بس يعني مواطن بحريني انت اخوي لما يابت امي kaliya ma tihid muwaadin baxrayn waxay leedahay walaalkan ayaa tahay sidoo kale ويرزقك من غير ما لا تحتسب. الله يوفقك في حياتك ويخليك يا امي. شكرا عمي محمود أعطيتني كليتك mahad حبك celin ayuu وايد. jeedinayaa waan ku وأنا jeclahay أحبك أكثر. ana aad ayaan kuu jeclahay jiri daawadayaal waxaad nala wadaagtaan aragtidiina ku saabsan dareenkiina muuqaalkan maxamuud iyo wiilkan yar ee maxamed isaga ayaa guddoonsiinaya biladii صراحة يعني هذا الشيء أنا أشكركم عليه. أنا صراحة منتظر تقديري من رب العالمين في الآخرة. waadna idinkaga mahad celinayaa ayuu yidhi arrintan aad ii samayseen يعني أنكم قدرتوني في الدنيا يعني. sidaad iigu qadariseen arrimahaani ما يخلص. إذا تقدر تسوي خير سوى كل ما تقدر. كل يوم كل ما تقدر. الفرصة ترى تجيك مرة واحدة. فرصة الخير إذا inaad kheyr samayso mar waliba waxaa muhiimsan marka ay ku soo marto inaad samayso ha ka cabsanin ilaahay tawakul ay sameey ayuu yidhi محمود أنت كفو. يبا أنت كفو. محمود انت كفو. محمود أنت كفو. maxamuud waad u qalantaa ayay yidhaahdeen محمود تجاوز حدود الإنسانية وغير maxamuud مفهوم العطاء waxa uu ka gudbay وكتب قصة xuduudda وظل bini'aadanimada إنسان يحمل mid ka mid ah الطاقة xubnihiisa iyo waxa uu bixiyey canug yar uu ku badbaadiyey وروحه حياة الغيرة وكان فعلا قدوة في العطاء. محمود أنت كفو. maxamuud waad u qalantaa